haddana maxaa iska bedelay mowqifkaagii maxaase ka aaminsan tahay gooniisutaaga ay raadinayso somalilan horta runtii waa su-aal fiican oo u baahan inaan maantoo kale ka jawaabo hore ayaan uga fekeray inaan su-aasha intii markaan imi ka jawaabo aan bila joogay laakiin haddana waxaan is yidhi waxa laga yaaba go-aankaagaasi inuu mid caadifadaysan ama degdeg ku jiro u muuqdo markaa waxoogaa baan markaa ka yara baarandegay go-aanka laakiin maanta sanad iyo 2 bilood oo kale fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan u sheegayaa gooniisutaagayga iyo mowqifkii wixii iska bedelay mid waxa weeyaan horta mid laya damiirka niyadda waxaan arkay ma u malaynaysaa anigoo ingiriiska baasaboorka daan ka qaatay umaan dhalanin inuu british miyahni soomaaliyeed baan laakiin dhalasho ahaan baan ka qaatay ingiriiska waxaan arkay xilligii scotland loo ololeynayay inay ka go'do ay u ololeynayaan qaarkood inay ka go'do boqortooyada ingiriiska ayaan aada u dhibsaday oo ay gooni isu taagto dabeetana aad baan u dhibsaday waanan diidana ugana soo horjeeday dabeetana waxaan xaggii qabanaysaa scotland boqortooyada ingiriiska waa yaraanaysaa wales iyo england yaa soo hadhi doona iyo waqooyiga ireland waxaasan ka fekeray haddana waxaan arkay UK oo ololeynaysa inay Yurub ka baxdo midowgii Yurub ka baxdo taana waan ka soo horjeeday waan diidana ma malaynaysaa dabeetana mid waa taa damiirka oo maalin dambe ayaa waxaan isweydiiyey anigoo habeen goor dambe ay tan soo baraarugay ayuba waxa igu soo dhacay kud igu soo yidhi su'aal odhanaysa war ingiriiska inay Scotland ka doodo waa diidanay umana dhalanina dhalasho baad ka qaadatay Yurub inay ka baxdana ingiriiskana waa diidan tahay maxaad ugu ololeynaysaa inay Somaliland ka go'do Soomaaliya oo ay dad walaalo yihiin isku dhaqan yihiin isku af yihiin isku dad yihiin su'aasha maanta aan isweydiiyey ayaa waxay igu noqotay ma u malaynaysaa karbaash shayda lala dhacayo damiirkayga runtii taasi mid bay ahayd waxyaabihii aan isleeyahay sababta bedelaadda mowqifkaasi aan ku fekerayna mar bedelo aan idhahdo waxaana ku jirtaa morally ama niyad ahaan ma fiicna damiir ahaan ma fiicna talabaadna waxay tahay waxaan ahaa wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda 2009 ilaa 2017 bishii June taasi waxaan markaa noqday xaqiiq ah aan soo arkay oo aan soo taabtay xaqiiqdan soo taabtay maxay tahay waxay tahay waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u xil saaran inay u raadiso Soomaaliya ama xukuumadda uga wakiilay inay ixtiraaf u raadiso ama higsigeedu way inay ixtiraaf u raadiso waxa weeyaan 2009 ilaa 2000 iyo maanta soo 20 aanu joogno waxa weeyaan waxaanu leedahay Soomaaliyanimo wax la yiraahdo wakiilo dibadaha u jooga wakiiladaas waxa loogu talagalay halkii safiirado inay ka dhaadhiciyaan dawladaha ay la joogaan iyo dawladaha ay la joogaan wasafaaradaha joogan ka dhaadhiciyaan qadiyadda madax banaanida Somaliland ayayna Somaliland xaq u leedahay in ay ka tashato lacag badan baa ku baxda 2016 ilaa 2020 lacagta ku baxday oo iminka aan dhamaysan waxa weeyaan 250 bilyan oo Somaliland shilingisa oo u dhigata 8 milyan iyo 330 kun oo dollar waxa ku baxa lacagtaasi ay ku baxda waa wakiilada 22 wakiil oo jooga oo wakiilo rasmi ah waxa jira 3 wakiil sharafeedo waxa jira 3 wakiil ururo oo African AU doka African Union ka kale wakiil bay Soomaaliya ku leedahay European Union ka wakiil bay ku leedahay iyo intii xukuumadda Muuse Biixi ay timi oo ay ku yeelatay iyaguna wakiil UN ta magacawday waxa jira 3 wakiil sharafeed waxaas 3 wakiil iyo wakiilka wareega intaas lacagta ku baxda waxay noqonaysaa inta ku sheegaa 250 bilyan oo Somaliland shilingis waa lacag 10 milyan ku dhow waa lacag 10 milyan dollarka Mareykan waxa jira lacag kale oo sanduuqa la yiraahdo ictiraaf raadinta aqoonsi raadinta sanduuqaasi waxa weeyaan iyagana 3 sano ugu dambeeyay haddaan soo qaato waa 2018 iyo 2020 haddaan 3 sano ugu dambeeyay soo qaato waxa 48 bilyan oo Somaliland shilingis ku baxayna ah ku dhow 7 milyan iyo bad dollarka Mareykanka sanduuqa ictiraaf raadinta maxaa loogu talagalay in safarada laga bixiyo dabadaha
lagu tagay laga soo dhaadhiciyay qadiyada madaxa banaanida Soomaaliland wufuudu waxa loogu talagalay looyaro iyo qareeno la qabsado dooda qadiyada madax banaanida Soomaaliland oo xagga sharciga ka eegaya xagga kaleba magaalada historyga ka eegaya oo looyaro xagga sharciga uu ka eegaya waxa ku jira iyaguna daabacaado fara badan iyo qoraalo badan oo la sameeyay oo intii dambe uu imika Saacad Cali Shir markuu wasiirka مثلا Somali history oo qorayo Somaliland kiisu qorayo dhan lacagtaas iyo waxa galay oo dhani maxaa maxsuulku noqday Somaliland 2020ka inta ilaa iyo oo noqonaysa sanadkii 2020 marka May la gaaro 18 May inaanay jirin dawlad kaliya oo aqoonsatay iska daayo nooc carab laalaadisay xitaa inay aqoonsanayso ma jiro siyaasi ama hogaamiye ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare badho oo jecel ama sympathy haya ama la xajala kaasoo ama taageero kaasoo ama inuu aqoonsado Somaliland waxay mid walba ay samaysay kale inay markaasi ay iyagu ka dhamaadaan inaanay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeedu ay ku xiran yihiin Soomaaliland ictiraafkeedu ay ku xiran yihiin wada hadalada Soomaaliya iyo waxa sagalnaa marnaba diidmo iyo dhabar jeedin cad oo la arkayo iyo loo soo jeediyay marka waxa weeyaan dhabarka markaad aragto runta aad aragto gidaarkaad soo taabatay anu xukuumadii shantii xukuumadood waxaan noqotay xukuumadii ka soo bilow Ilaahay Xasan Cabdiraxmaan Axmed Cali ka soo bilow xukuumadii kale maxaa xajibraan Ilaahay Xasan xukuumadii kale daahiyada ku xigsi أحمد محمد سلام كويسي حكومة مصبيح عبد المجيد جتا شن طبعا وحنا قبينا الدلال كويرة قارسنا كويرة وحولنا كويرة نسي اعتراف كوي قال الهاي لكن دربي بقى الصوت تابته دربي بقى الصوت تابته لو حوالي الدون كمان هبين إن السومالي قوانصار مركب واحدة مسنتها إن أنا السومالي لان اعتراف هليني إن أنا السومالي اعتراف هليني حدي أنا اعتراف هليني موقف كودنا ولي أي كود جيهين ما داعي هرت ردتي maanta sheekayar baan ku sheegay baan maalintii la hadlayay wuxuu yiri anigu inaan yar ah oo dhowr iyo 90kii ayaa waxa dhacday weeyay aabahay baan raacay meel lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliland baan u raacay inankayga markaan soo noqonay wuxuu weydiiyay weeyay aabo Soomaaliland goorma la ixtiraafaya dabeetana wuxuu yiri garan maayo markii aan weynaaday buu yiri ee aan guursaday aniga ayaa inankayga 10 jira ayaa su'aasha lafteedii weydiiyay buu yiri wuxuu weeyay su'aasha lafteedii weydiiyay waxa ahayd inay markaasi wiilada aabo goorma Soomaaliland la aqoonsanaya dabeetana jawaabtu aabahay siiyay ayaa siiyay oo ahayd garan maayo marka anigu mowqifkayga waxa bedelay waa taaniya jabka iyo garan maayo maaha waan garanaya anigu inankayga liibaana maanta dooni maayo inaan u qariyo inankiisana ku soo garan maayo waan garanaya halooshaadana cayl loo maqal inaan Soomaaliland ictiraafin haday heli weeyo sababta iyo horumar marka hore sababta ictiraafin leeyahay waxa weeyaan Somaliland iyo Somaliland arinteedu waa horta waa de facto status bahaysataa waa la aqoonsayay waxay leedahay dawlad bay leedahay dumaladeed baa ka hirgashay nabadgelyo ka jirta wax badan bay qabsatay Somaliland laakiin dayjuurigan ka maqan dawladda sharciyeehi waxa weeyaan adduunkii aqoonsan la ama Afrika ha noqoto ama dalal kale ha noqoto ayaa diidan qaarkood Afrikaanka waxa uu diidan yihiin in muran uu dhashay ixtiraafka Somaliland hadii la ixtiraafo inuu muran ka dhalanayo xuduudihii Afrikaanka laga tagayay qaar waxay u arkayaan hadii ay ixtiraafaan Somaliland inay Somaliland dagaal sokeeyo Soomaaliya ka dhaxdhici karayo qaar ba ujeedooyin iyo dana gaar ah u diidan yihiin qaarna waxay u diidan yihiin waxa weeyaan khibradii ama way aragnimadii xumayd ee aan fiicnayn ay ka heleen ictiraafkii iyo gooniisitaagii koonfurta Suudaan ayaa ugu dambeysay ayuu diiday marka anigu waxaan ogahay inay darbi adduunku aan ogolaan in Soomaaliland la ictiraafo ay leeyihiin wada hadlana marka waxaan u sii dhagalaado oo gooniisitaag waan u aaminsanahay ma jirto aniga laakiin Soomaaliland ictiraaf way heli karaysaa mowqifkaas maxaad u soo bandhigi weysay inta aad xilka haysay ee aad wasiirka ahayd waxaan ku wari anigu go'aanada aan gaalayo waxaan ku saleynayay mid waa aniga ku sheegay laba sababood mid waa intii aan Muqdisho imanin waa damiirka tanna waa tan oo kale waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda markaan u lahayn iyo waxa soo wada ogeyn baan ku inaan Soomaaliland la ixtiraafin madaxweynayaasha aniga iska daa madaxweynayaasha qaar ba ogaayo loo sheegay
oo loo sheegay inaan la ictiraafin ama carabi ha u sheegto ama afrikaan kale ha u sheegay loo sheegay nin waliba marka le maxaanu yeelnaa ictiraaf ma jira markuu yidhaahdo ha soo hadal qaadina loonaya dadka inugu kacaaye oo dadka maxarunta marka loogu sheegi dadka shicibka ah maxarunta loogu sheegi shicibka waxay halkay ahayd inay siyaasiyiintu hagta shacabka iyo shacabka muddo baa been loo sheegay marka waxaan dhihi karnaa siyaasiyiintu shacabka ka cabsanayaan laakiin way og yihiin haanta gunteedii way waan og yihiin inaan ictiraaf jirin waxaan imil dalka 2002 baan imid doorashadii ugu horeysay golaha yaasha deegaanka lagu bilaabay mana burcan ka shaqeynay burcan joogo xisbiga u dubanaha 2002 wax la lahaa dadka markay doorashadaas u dhamaato waa la ictiraafaya haddana waxa saddex xisba soo baxay waxa soo baxay udub iyo cudiyo iyo kulmiye waxa haddana yitii madaxtooyada imanaysa waa marka la naaftaaway imanaysa marka maalinba doorasho dadka loo dhiibayo inay sheegayso tii baarlamaanka madaxweynaha madaxtooyada marka way og yihiin inaan waxba iimaanay dadku iyagu ma og yihiin inaan ictiraafka iimaanay runtii waxay dhegeysanayaan hadalka siyaasiyiinta oo ay waxaad moodaa waxbaa imika waxaad moodaa in dadku soo bislaanayaan waxaan xasuustaa may 18 may mid ka mid ah oo aad dadku u jibbaysan yahay oo suuqa weynaha Hargeysa la marayo ayaa dahabshil lacag ka soo qaatay dabeetana lacagtu jeebka ku sito ayaa waxa dhacday inuu markaasi niman tuugi soo daba galeen waxa maadiga yiri Soomaaliya la aqoonsan maayo keeyiri dadku dhan baa ku boobay way dileen lacagtuna waa laga baxay waxa weeye marba halka dadku marayeen in qof kale Soomaaliya la aqoonsan maayo ay gacanta ula tagayeen laakiin dadka imika waxa moodaa inay soo bislaanayaan 9 way fahmayaan dad way jiraan imika waxaan xasuustaa heestan ciyaar jeceli maxay qoladoodii iyo maxaan oran jiray kooxdoodii qayladaan heesayaan Soomaaliya toos waa qalibanteen Soomaaliland qaarkood imika shacabkoodu way hurdaan har galay bay hurdaan waxaan u baahan inay toosaan oo reality-ga la faysanayo way marka